kulanti waxaan wanaagsan dhammaan baxda ku xiran channelka kulmiye technology koorsan waa koorsada C++ casharku waa casharkii 33aad maanta waxaan qaadanaynaa passing away to function sida array loogu baaso function marka hore waxaad qabsanaysaa hal function waxaan qabsanaynaa function si aan u qabsano functionkaaga waxaad ku qori kartaa haddii aad rabto mainka ka banaanka amba mainka horkiisa mainka ka banaanka qaybta hoose amba qaybta sare waxaad ku qori kartaa qaybta kore oo mainkan amba qaybta hoose meel alaale mida aragto hadda waxaan iskaga qorayaa qaybta hoose si aan u qorno waxaad sheegaysaa horta return type-ka oo functionka waxaan dhahay float kaas oo ah functionkan yuuna wax soo celinin okay kadib waxaad sheegaysaa magaca functionka waxaan iska dhahaynaa wax alaale waxaad rabtaa ka dhigi kartaa magaca functionka balse aan waxaad iska doortay soo bandhig maxaa yeele waxa aad samaynayso inuu functionkaaga quseeyo la rabaa bandhig okay kadibna waxaad furaysaa bracket kadibna waxaad furaysaa parenthesis kadib markii aad parenthesis furto waxaad u sheegaysaa wax alaale iyo functionkan wixii uu banaanka u baahan yahay amba aad ku baahaysid oo parameter okay kadib waxaad leedahay waxaan dhahaynaa waxaan rabnaa inaan ku baasno array kaas oo ah waxaan rabnaa inaan ku baasno array okay waxaad sheegaysaa data type-ka saad u sheegto data type-ka waa kana waxaad sheegaysaa data type-ka kadibna waxaad sheegaysaa magaca arrayda waxaan leeyahay magacyo okay haddii aan sidaan ugu tago horaan waa soo aragnay anagoo sameyn haddii aan sidaan ugu tago waa variable qaabkan si aan ugu sheegno computerka waxaan lagu soo baasayo functionka inay yihiin array waxaad u baahan tahay square bracket maxaa u baahan tahay square bracket kadibna waxaan usii sheegaynaa waxaan u baahannahay hal warbixin taasoo ah xajmiga arrayda amba ilaa inta ay qaado arraydan si aan u ogaano cabirkeeda xajmiga okay kadib markii aan ogaano functionkan keliya wuxuu qabanayaa soo bandhig si aan usoo bandhigno array waa isticmaali karnaa inaan si aad aan isticmaalno mar badan qaab kaloo shortiina waa jiraa kaasoo ah anagoo isticmaalayno for loop sidaa darteed waxaan iska isticmaalaya for loop waxaan leeyahay haddii aad rabto x y waxaa rabto waa iska qabsan kartay balse waxaaga inay meaningful yihiin fiican oo macno leeyihiin kadib waxaan dhahay inta uu ka yaryahay xajmiga 3a plus 3a waxaa ku diraynaa hal okay kadib waxaan leeyahay soo bandhig waxaan soo bandhigaynaa magacyo okay kadib markii aan soo bandhigno inta waxaan gelinayaa 3a kadib markii aan geliyo 3 kadibna waxaan dhahaynaa endline saa u jeediin yar koraan u qaadaa sidaa si fiican uga aragtiin okay saa u jeediin waxaan dhahay magacyo kadibna waxaan dhaca jirtay 3 kadibna waxaan ku daba qabtay sida okay functionkan wuu noo dhammaayay kaliya waxaa u baahannahay inaan wacno iyo wax yaroo kale aan u baahannahay asigana okay waxaad tegaysaa qaybta mainka waxaan qabsanayaa arraydii aan rabnay inaan ku soo bandhigno functionkan gudihiisa okay waxaan leeyahay string waa inay islaadaan waxa aad ku baasayso functionka iyo waxa inta aad ku qabsanayno kadib wax alaali waxaa rabaa u bixi karaa hadda ma xataa u bixi karaa balse waxaan iska leeyahay magac oo macno fiican leh oo la fahmi kara u bixiyaa kadib magacyo kale iska dheh size-ka meeqo waa 5 aan iska dhaho wax alaali waxaa rabtaa ka dhigi kartaa okay markii aad dhahdo equal aa ilmaamin parenthesis-kaas aa ilmaamin kadibna waxaad ku xariisaa elementigii aad rabtay amba qiimayaashii aad rabtay kan ugu horeeya aan iska dhaho jaarka kan labaad aan dhaho maxamed oo kale aan dhaho kan saddexaad aan dhaho cali kan afaraad aan dhaho asigana iyo aan kaloo dhaho okay kadibna aan ku daba qabto semicolon kadibna waxaan ku daba qabanaynaa semicolon kadib waxaan wacaynaa functionkii
si aad u wacdo functionkii waxaad u baahan tahay inaad sheegto magaciisa. Waxaan sheegaynaa magaciisa kaasoo ah soo bandhig. Kadib waxaan ku baasayaa magacyo. Okay, si aad u jeedin hadda compilerka wuu ogyahay, hore ayaan ugu sheegay. Mar labaad ma sii dhahayo haddana square bracket ma usii sheegayo. Keliya waxaad siinaysaa variable-kaas magaciisa. Waxaan siinaynaa variable-ka arrayda magaciisa. kadibna compilerka asiga ayaa ogaa doona. kadibna waxaan u sheegaynaa size-ka kaasoo ah 5. waxaan u sheegnay size-ka kaasoo ah 5. okay, hadda haddii aan run dhaho koodkeena error ayuu soo saarayaa maxaa yeelay functionkan compilerka ma ogo. maxaa yeelay koodkeena wuxuu kusoo bilaabanayaa kor inta ayuu ku imaanayaa. compilerkana wuu qaylinayaa functionkan ma aqaana si aan ugu sheegno hore ayaan soo qaadanay. waxaad samaynaysaa waxa la dhahayo prototype kaasoo ah inaad qaado functionkan qaybta kore kadibna aad geyso qaybta sare. waxaad qaadaysaa functionkan kadibna kor ayaa geynaysaa. kadib waxaad ku daba qabanaysaa semicolon. semicolon haddii aad ku daba qabato hadda waa okay, wuuna shaqaynayaa. okay, sidaa u jeedin wuu soo saaray. magaca ugu horeeya waa jaarkii, kan labaad waa maxamed, kan kale waa qadro, kan kalena waa xamso. waa saxan yahay. wuu saxan yahay. okay, waxaan rabaa inaan mar labaad aan waco balse inaan kala xadidaan rabaa magacyo kadibna aan ku daba qabto endline. waxaan rabaa functionkan inaan mar labaad waco aan array kale sameeyo taasoo lagu xareynayo xaafado endline. waxaan rabaa inaan sameeyo array kale. waxaan ka bedelayaa qaybtan. okay, waxaan bedelayaa meelahan. okay, waxaan bedelaynaa qaybtan. waxaan soo koobiyeystay arraydan kadibna waxaan ka bedelay magaca. kadib waxaan rabaa sizekeeda horta inaan iska yareeyo aan ka dhigo 3 camal. kadibna aan bedelo qaybtan aan ka dhigo hodan oo kale. tan kale inaan ka dhigo iyadana yaaqshiid oo kale. tan saddexaadna aan ka dhigo waa berry. halahan kalena aan iska saaro maxaa yeelay sizeska waxaan dhahay keligii waxay u baahanahay inay qaado 3. 1 2 3 saa u jeedin sizesku waa 3. kadibna waxaan wacayaa isla functionkii. sidaa u jeedin fiiri faa'iidada uu leeyahay functionka hal mar ayaan qoray kadibna waxaan wicayaa hal jeer iyo wixii ka badan. haddii aad rabto waxaad wici kartaa 100 jeer inta ay baahidaadu ku xiran tahay. keliya waxaa isbedelaya variable-ada aan ku baasayo. xaafado tan sizeskeeda iyadana meeqa waaye waa 3. sidaa u jeedin haddii aan rangarayo hadda wuxuu soo saarayaa functionkan wuxuu qabanayaa 2 baax. keligiis muxuu qabanayaa 2 baax. sidaa u jeedin qaybta kore wuxuu soo saaray magacyo waa jaarka, maxamed, cali, qadro iyo xamso. xaafadana waa kana asigana muxuu soo saaray hodan, yaaqshiid waa beri. sidaa u jeedin wuxuu qabanayaa functionkan wuxuu qabanayaa keligiis hal shaqo iyo wixii ka badan. wuxuu qabanayaa 2 shaqo. waa faa'iidada uu leeyahay functionka. waa write one and reuse multiple times. waa hal mar qor kadibna isticmaal marar badan. okay, hal mar ayaan sharxayaa si aad ugu fahantiin si fiican. marka hore waxaan qabsaday hal variable. waxaan qabsaday array. marka hore waxaan qabsaday array kaasoo oo dataabkeedu yahay string magacana uu yahay variable-ka magaciisana uu yahay magacyo. waxaan rabaan dhaha inay qaado 5. okay, kadib waxaan dhaha equal waxay la mid tahay waxaan ku xareeyay magacyadii jaarka maxamed, xamso, cali. kadib waxaan qabsadaa haddana asigana array kale dataabkeedu yahay string variable-kaasna arraydaas magaceeduna yahay xaafada. cabirkeeduna ha noqdaa dhaha 3. ha qaado awooda u lahaatay inay qaado 3. kadib waxaan ku shubanaa hodan, yaaqshiid iyo waa beri. kadib waxaa dhahay soo bandhig magacyo. wuxuu soo bandhigaa magacyo. waxaa dhahay haddana kadib soo bandhig. okay, soo bandhig functionkana la aada. soo bandhig okay, functionkana la aada. waxaana lagu baasayaa arraydan kaasoo ah magacyo iyo integerkan kaasoo ah 5. kadib waxaa la aadayaa functionkan bootkiisa. koodkeen muxuu aadayaa hoos oo imaanayaa. okay, waxaa la fiirinayaa return tabka. return tabka muxuu ahay food maxaa lagu soo baasay magacan waa soo bandhig sax waa maxaa lagu soo baasay array.
kaasoo magacyo kadibna xajmiga meeqo ah 3 inta la imaana follow country wuxuu la mid yahay ever kadib waxa la leeyahay 3 okay 3 inta kuma laga horeeyaa waxa la leeyahay 3 waa meeqo waa ever iyo 5 yaaya ever aya okay ma soo bandhigayaa waxa soo bandhigtaa live magacyo hal variable maan magacyo waa array okay magacyo waa array kadib waxa la leeyahay ka soo bandhig positionka hadda 3 meeqo marooya waa ever waxa soo bandhigtaa arraydan positionkeeda koowaad waxa ku jiro oo soo bandhigaa kadib markii wuxuu soo bandhigaa positionkan koowaad oo arrayda positionka koowaad waxa ku jiro kaasoo 0 wixii ku jiro la soo bandhigayaa kadibna haddana uu noqonayaa waxaa la badinayaa variablekan kaasoo 3 waxaa lagu darayaa hal kadibna waxaa la soo bandhigayaa haddana wixii ku jiro position 1 kadibna waxaa lagu darayaa hal kale 2 wixii ku jiro position 2 haddana waxaa lagu darayaa hal kale 3 wixii ku jiro position 3 kadib haddana hal kale lagu darayaa 4 wixii ku jiro 4 haddana waxaa lagu darayaa meeqo lagu darayaa 5 kadibna waxaa leeyahay 5 3 meeqo waa 5 marka yarta 5 waa maya sidaa darteed wuu ka soo baxayaa kood kalena inta ma yaalo functionkan wuu soo laabanayaa wuxuuna tegayaa qaybta sare okay koodkan wuu soo laabanayaa haddii uu functionka ka soo dhammaado wuxuu imaanayaa qaybtan kadib wuxuu arkayaa soo bandhig maxaa la soo bandhigayaa calaamadahan kadib xaafado calaamadahan sawir cusub kadib haddana wuxuu arkayaa soo bandhig functionkan oo ah soo bandhig magaciisa waxaa la aadayaa functionkan meeshii lagu qoray kadib wuxuu imaanayaa functionkan kadibna wuxuu kusoo baasayaa array kaasoo ah xaafad sizekeeduna yahay 3 inta la imaanaya 3 wuxuu leeyahay leeyahay 0 3 waa ever iyo meeqo waa xajmiga waa 3 ever iyo 3 yar ever yar kadib waxaa la imaanayaa meeshan wuxuu soo bandhigayaa magaca wax alaale waxaa rabtaa iska dhigi kartaa dhib malahan aad meeshan array ku habboonay dhib malahan laakiin waa iska caadi kadib waxaa leedahay magacyo okay kadib waxaa leedahay 3 meeqo maraya 3 waa 0 maxaa leedahay 3 waa meeqo 3 waa 0 kadib waa lasoo bandhigayaa tiro okay waxaa lasoo bandhigayaa arraydan booskeeda eberaad wixii ku jira ama booska koowaad si alaali wax aragta leh waxaa lasoo bandhigayaa xaafadaas kadib waxaa dhacayaa daayo wixii aan soo sharxayn oo dhan kana la badinayaa ilaa uu ka gaarayo 3 iyo 3 waxaa lasoo bandhigayaa arraydan wax alaali iyo wixii ku jira videoga like saar channelkana subscribe saar si aad ugu soo biirto bahda kulmiye technology mahadsan